waxaan ku soo gabagabaynayaa qiso saddexaad oo xilligan dhacday Faransiiska magaalada Paris waxa ka dhacday in dhaweydba WhatsApp-ka la isku dhaafsiisanaya guruubyada gabadh waxa weeye soo islaantay oo Faransiis oo dhalada ayaa waxay soo gashay dukaan laga adeeganayo gabadhaasi si la yaab leh u xijaaban tahay qacmaha galoofas bay xiran tahay way niqaaban tahay xijaabkii ugu wanaagsanaa bay ku xijaaban tahay dukaanka waxa hayo iibinaya gabadh Algeeriyaana oo asalkeedu Carabiyad muslima ka soo jeeda laakiin gaaladii soo eekaysiisay oo timuhu qaawan yihiin laabtu ay qaawan tahay oo doonaysa istaylka Yurub inay u ekaato aan laga soocin xadaarada ay la noolaato ayaa dukaanka iibinaysa markii gabadhan muslimadda ay dukaanka sida u soo gashay ayay aad uga diiqadood cidhiidhi bay dareentay dabadeedna markii ay u timi xaggii xisaabta meeshii wax lagu kala iibsanaya ugu timi ayay ku tiri waxa weeye maxaad ugu noqon weyday dalkaagii labiskan aad xiran tahay meesha lagama yaqaano caalamka dib dhacay caalam thalith baa labiskan laga xidhaa caalamkani waa caalam kale haddaad doonaysa xijaabkan iyo labiskan wadamadii muslimiinta ee dib dhacay dib ugu noqo ee takhallufka ahaa haddaad doonaysa halkan inaad ku noolaatana dadkani siday u nool yihiin waa inaad u noolaataa oo adduunyada aad la jaan qaadaa yadii baa wax waaninaysay talbaaska dabadeedna intay xijaabkii iska qaaday bay waxay tustay inay tahay dadkii waddanka u dhashay Yurubiyaan asal inay tahay waxay tidhi anigu halkan ka tagi maayo halkan aan ku dhashay awowka awow abka ab halkan aan ka soo jeedaa waxaan ogaaday diinta islaamku inay taxaqqa tahay diinta islaamka ayaan ku qancay ciziga iyo sharaftuna iyadu ku sugan yahay laakiin labada mid hadduu noqonayo adigu waddankaagii ku noqo adaa soo galootiyo shalay soo galay waa dulli halkii ugu dambeeyay gabadhii hadal dambe kama soo bixin halkii bay ku aamustay waxaan leenahay waxa aad iyo aad u habboon nolosha qaybaheeda kala duwan inaynu islaamnimo ku faano ganacsi hadduu yimaado inaynu idhaahno ganacsigii muslimka iyo tii muslimku noo jideeyey baanu qaadanaynaa labis hadduu yimaado labiska islaamka inaynu ku faano cuntooyin haddii laga hadlayo cuntada muslimka iyo qaabku u cuno in waxa weeye la cuno